xukuumadda Somaliland iyo dalka dib ugu soo celisay taariikhyaal ku xayirna dalka Liibiya. Dhallinyaradani taariikhyaasha ayaa saakaroornimadii hore ka soo degay garoonka diyaaradaha ee Cigaal International Airport, waxaana halkaasi ku soo dhoweeyey mas'uuliyiin ka socday xukuumadda Somaliland. Dhallinyaradani taariikhyaasha ee lagu soo celiyey Somaliland iyo waxaa iska kaashaday soo celintooda hay'adda barakacyaasha iyo qaxoontiga Somaliland iyo hay'adaha IOM, UNHCR. Dhallinyaradani lagu soo celiyey dalka Liibiya ee taariikhyaasha ayaa waxaa halkaasi kula hadlay una jeediyey dardaaran iyo dhiirigelin gudoomiyaha hay'adda barakacyaasha iyo qaxoontiga Somaliland Cabdikariin Axmed Maxamed Xinif, wasiirada wasaaradaha shaqo-gelinta iyo cadaaladda Somaliland iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka socday hay'adaha IOM, UNHCR, kuwaas oo dhammaantoodba si isku mid ah ula hadlay dhallinyaradani isla markaasina ugu jeediyey dardaaran. Ku horeysa xurriyad halka hadda seexataan oo ku gaajootaan halka cid idinka kicinaysa ma jirto. wayna soo mareen intan in ka badan baan soo martay aan soo hore u soo celinay iyagoo lugeynaya oo bed qaba oo caafimaad qaba oo waxba qabin reerahoodii intay ka tageen iyagoo wheelchair saaran aanu diyaaradda garbaha kaga soo rognay baa jiray hore. waxa soo celintiina iska kaashaday dawladda Somaliland iyo hay'adaha IOM iyo UNHCR. maanta waxa idinka farxad badan idinka hooyooyinkiin iyo qoysaskiinni haddaad ku dayacanto gurigaaga waad ku gaajooto waxaad ku haysataa xurriyad sidaa doonto ku yeeli karto. annagu idin warrami mayno, idinkaa war haya maanta. dhul aanad lahayn iyo dal aanad lahayn iyo dad aan ku doonayn iyo dad siday doonaan kaa yeelaya iyo dad bani aadminnimadii iyo dadnimadiiba xoolanimo u beddelay oo dadkii xoolo ka dhigay idinkaa maanta nooga aqoon badan oo aanu doonayna inaan wax idinka kororsanno. waanu idin soo dhawaynaynaa, waa laydin warrami doonaa sida laydin maamulayo halka laydin geenayo iminka iyo sida arrimihiina wax looga qabanayo iyo waqtiga reerihiina is arkaysaan iyo wax badan baa jiri doona. hadda moobile hay'adda iyo UNHCR idin qaybin doontaa iyo kaadhar reerihiina kula hadashaan. waxoogaa yaroo lacaga laydinku soo diri doonaa oo intaad joogtaan reerihiina aydan sarag wasaaradda caafimaadku waajibkeeda ka qabsan doontaa. dee xanuunaha adduunka jiro waa laydin baari doonaa, hudheelaa laydin dejin doonaa inta laydin fasixi doonaa haddii Ilaahay ka dhigo. marka anigu dee odaygeedin qaabilsanaan baan ahay way joogaan. Ilaahay mahadiya in idinkoo caafimaad qabo cagiina ku soconaya aad ku soo guriga noqotaan gurigiinii hooyo ee Eebbe subxaanahu wa tacaala uu idinka kaxeeyay shalay. dhibaato kastaaba ha idin soo marto waxa Ilaahay mahadiya maanta inaad nabad ku joogtaan dalkiinii hooyo. waanu idin soo dhawaynaynaa, waxaanu idin leenahay Ilaahay baan ugu mahad celinaynaa inaad nabad qab nagu soo gaadhaan. waxaan sidoo kale u mahad celinayaa gudoomiyaha hay'adda barakacyaasha iyo hay'adaha UNHCR iyo IOM oo gacan weyn ka geystay runtii in ay bartan maanta aynu joognaa aynu isugu nimaado. ugu horeyn waxaan u mahad celinayaa intii iska kaashatay saaka inaad dalkiina iyo dhulkiinaba timaadaan oo ay guud ahaan ka mid yihiin dawladda Somaliland iyo hay'adda IOM. dawladda Somaliland oo idin qaabilsan tahay hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranku. saaka sidii horeba loo sheegay waxaan idin leeyahay waa nasiib badan tihiin. waa subaxii idinku nasiib badnaa intaad noolaydeen saaka. waxaan u malaynayaa saaka muwaadinimada nadaafadda meesha aad tagtaan ilaalisaan baanu doonaynaa ilaa marka la idin baadho ay natiijadu soo baxdana reerihiinni baad u tagaysaan. These are 48 people who I can imagine how it was difficult for them to reach Libya. They spent many weeks, many months. I see women and children also among them. To this successful journey for the returnees. And we know that it has been very, very difficult due to COVID to arrange a return trip like